inay hawraartaasi ka dhalatay deegaanadan oo ay ahayd akaara goob ay isugu yimaadaan oo lagu kala warqaato taas maxaa ka jira horta akaara dad badan ma yaqaanaan laakiin anigu si fiican baan u aqaanaa akaara waxaa la yidhahdaa geed waxaa laga yaabaa ninkay dhegaysanaya yaqaana waa fahmaya akaara waxaa la yidhahdaa geed ku yaalla banka xareer ee Ceergaabo ka sokeeya waa geed weyn ceerna wuu leeyahay waa geed weyn oo la isku waraysto marka xilligii taariikhdu markay qarnigii 18aad dooxada Nugaaleed dadkan degan taariikh ahaan dhulbahanti la yiraahdo waxay dad fardoolaya oo dagaalyahanaa oo macnaha maaragtay Soomaalida kale oo dhan u quriye bay ahaayeen qurinta macnaha waxa la yiraahdaa isku taaga oo is yiraahdo ciidiba inay kama adkaan karto bay ahaayeen moogta xilligaas cid walbana يعني waxay oran jireen war cid ina ka fardo iyo maal fiican inuu ka soo qaadnaya garanaya ba minaha la oran jireen minaha maaragtay marka hadda markaad fiirisid geelasha oo kale waxay oran jireen geel ay haystaan oo kale waxay oran jireen waxay banka hiiraan ee hawiyada bay laga helay مثلا dadka buurta iyo xagan ay ka heeraan waxay oran jireen tusaalahaan oo kale yani sida dee fardoolay dee tanaaday oo kibirtay bay ahaayeen moogtaa marka ciday doonaan bay layn jireen ciday doonaan bay xoolaha ka dhici jireen marka geedkana wuxuu ahaa geed ay ku kala warqaataan marka nin kastoo meel loo diro ama cid kastoo meel ku maqan waxaa loo jeedaa geedkaasuu soo beegaya dabadna waxaa war jiraaba cakaaro iman marka geedka cakaaraba ayaa war kastoo jira imaan doonaa marka taariikhdan sidaas ay ahayd geedkaas lagu kala warqaadan jiray maxaa adduun jira maxaa xoolo la soo dhacay maxaa maanta la hayaa marka geedkana wuxuu ahaa geedkii qarnigii 18aad taariikhdu markay 1700 lagu kala warqaadan jiray dadka dhulkan deegaana ay fardoolada u badnaayeen oo iyaguna isleen jireen Soomaalida kalena ay leen jireen labadaba ay leen jireen marka xilligaas baa geedkaasi u kala warqaadan jiray marka geedkaasi qofkaan aqoon hadda uu sheegay halka ku yaala waanka xadeer waa deegaanka dadka dhulbaanto ay deegaan eelna waa ku yaalaa waana lagu kala warqaadan jiray marka saasa loogu bixiyay war jiraaba akaar weeyman geel la kala qaaday oo nin madax gaal la oran jiray mise madax geel oo beesha Cismaan Maxamuud uu ka qaaday oday muxtarim ahaayo beelaha Nuur Axmed reer Faarax Ali Muuse Faarax la oran jiray Muuse Hayl la oran jiray oo nugaasha laga ixtiraami jiray geelisu qaaday marka kadibna wuu ergiyay marka kadibna ergadii buu geel ku soo waayay marka kadibna wuxuu codsaday in col la siiyo oo qolyahaas geela ka dhacay reer qardho la geliyo markaas waxa la yiri waxaan ku siinaa 100 halaad waxba hadda colaad geel ah inagu gelin marka adigu wuu maahmaahayo oo uu caawdo wuxuu geela in geel ay soo dhacmaahane aniga geel barya lagu siin maayo iyo aritoona ma rabo ama waayr baan ahaanaya nimanka ay dhacay waan col iyo awood baan nin u waayay baan noqonaya ama col baa la siinaya doo yaqaanin dadka hadalada oo geeligu miyuusan maxaan ku iraahdaa lahayn faaliye dabcasar la yiraahdo geeligu miyuusan dalyaqaan dabcasar la lahayn geeligu miyuusan fiqi lahayn geeligu miyuusan halkaas la maray waran lahayn kadibna waxa lagu heshiiyay maadaama dhulku buuro iyo waxa yahay in muddo hal sano ah bal colka meeshan cakaar la yiraahdo ragga wixii yimaada ay isku wareystaan oo aan laga ninkii yimaadaba col iyo talo yimaadaba uusan dib uga bixin marka maadaama ay hal sano loo col urursanayay meeshaas bari oo dhul boorlaya bay hal sano lagu col urursanayay meeshan cakaar la yiraahdo marka waxa iska Soomaalidu dhaqan uma lahaan jirnay muddo hal sano meel fadhido marka arrin bay ku yar iktishaafeen cusub oo ku yar daahfureeno wararkii adduunka oo dhan nin maka ka yimaada nin maka Madiina ka yimaada nin koonfur ka yimaada nin waqooyi ka yimaada marka dhaqankii baa wuxuu noqday in wixii xaqiiqo ah golaha ay yimaadaan marka dambe halota wixii aan golaha imanna wax war aan raad lahayn bay laga soo qaaday kadibna dadkii baa fahmay in meesha hadii gola la sameeyo xaqiiqadiisu warka isugu timaado nin walba war buu keenaya xaqiiqa aan la kulmay kadibna waxay ogaadeen wixii aan war jira haduu jiraba inuu halkan golahan imaanayo markaas ay yiraahdeen war jiraaba cakaaru iman taas soo saahay
منطقة هذا عراق أبي كنت على دين عكن محن كره قولة سول يعني وده كان محن كره هذا قولة سول سنة عند دقنيه ولي يقعد دقن الخاص nimankii garaadada ahaa waa gadow jabaaye ebow gurbood baa hadhiyo gereex agoomeede gaagii ka hadhay reer shawaacayd la goolublayne waxaa goday sidii qaanso waa gaajo iyo qiile waxaa guruufta caydheed ku raray dulgashiishaahe ebow gaboodii doraad waa ka gaaran layne ebow nin goobabaano hoy gunii rifaysaaye ebow markaan geylamay gulmiyo baqane ebow anaa kaga gar lehe gushaha iseeje